gudoomiye maamulka gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale xilka qaadista lagu sameeyay ayaa ka soo horjeestay xilka qaadista isagoo sheegay in ay tahay mid sharci darro ah isla markaana madaxweyne Waare uusan xilka ka qaadi karin wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan xalay lagu magacaabay markii saddexaad Cali Jeyte Cusmaan gudoomiye gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale oo shir jaraa'id galabta ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa sheegay in xilka qaadista lagu sameeyay ay tahay mid sharci darro ah isla markaana isagoo uu yahay gudoomiyaha saxda ee gobolka Hiiraan in la og yahay waxa maanta dhacay inay dhacayaan oo markii lagu dhawaado xilliga doorashooyinka dadka madaxda ah uu galo khalkhal siyaasadeed isla markaana ay taageero ku raadsadaan inay waxna xilka ka qaadaan waxna xilka u dhiibaan marka waxaan leeyahay Maxamed Cabdi Waare war la qabaa xiisa ma leh waxaan ku adiga kula mid ah oo sidaadoo kale u feel garoobay ayaa hore u sameeyay marka ma shaqaynayso waa qodobka soo horjeeda dastuurka in qofku wuxuu isku aajisto qofkii uu arko inuu challenge ku yahay ama uu kursigiisa ku dhow yahay ama damac ku jira isaga mid lamada uu ku jiro inuu xilka ka qaado waxaan leeyahay marka fikirkaasi waa fikir oo fashil ah oo horta lagu soo fashilmay anoo ku hadlaaya magaca maamulka gobolka Hiiraan iyo magaceygaba waxaan cambaaraynaa dhaqanka xun iyo hogaaminta xun maanta ka jirta dowlad goboleedka Hiirshabelle u baahan in dib loo dhiso waxaan leeyahay waxaad ku feel garowday hogaamintaadii dhinaca siyaasadda waxaad og tahay inaad wax ka qaban waysay xaanshidii adiga aad qortay aad gudoomiyaha degmada Buulaburta ku magacaawday aad Buulaburta geysay aad meel mari waysay 30 casho aad meesha jiiftay oo aad ku feel garowday oo aad ka carartay ayaan muddo 7 maalmood ku soo dhameeyay adoo ka xun arrimaha noocaas ah iyo kuwa la mid ah aan wadanka ka qabtay aan gobolka ka qabtay ayaa ku riday masayrka noocan oo kala ah waxaan leeyahay si degdeg ah hal loo helo dhismo cusub ee dowlad goboleedka Hiirshabelle hal loo soo gurmado dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka sidii loo dhisi lahaa maamulka Hiirshabelle ee fashilmay waxaan rabaa inaan sheego 3 sano Maxamed Cabdi Waare uu joogay dowlad goboleedka Hiirshabelle hal ceel uu qoday ma jiro magaalada Jowhar ee caasimadda u ah dowlad goboleedka Hiirshabelle ee aan daraa tagay hal biib taxta lagu soo kordhiyay ceel warkiisa iska dhaaf intii jooga ka qaxday wadadii furnaada xirantay wixii la qabanaya qabsoon waay ama ambition iyo damac siyaasadeed leh waa nin damac dhaqaale aqligiisa iyo maskaxdiisa uu ku bees garaysan yahay qof noocaasana ma noqon karo leadership oo dalka dadka dhisa aad iyo aad ay u mahadsantihiin waxaan ilaalinaynaa dastuurka waxaan u hogaansamaynaa qawaaniinta dawliga ah haba yaraatee wax aqoonsi ah oo ay leedahay warqadaas ma jirto umana hogaansami doono gudoomiyaha sharciga ah ee dastuuriga ah ee gobolka Hiiraan annaga ayaa ah ilaa iyo inta laga gaarayo dhismaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Waaxid Maxamed Aadan wararka dalka News TV magaalada